Lisandro Martinez oo carxun ka muujiyay arrin la yaab leh oo ku kacay Paul Scholes. Lisandro Martinez oo si adag uga jawaabay hadal ka soo yeeray Paul Scholes kadib markii halyeeyga Man United uu sheegay inuusan Martinez u qalmin ka ciyaarista koox heer sare ah oo ka dhisan Premier League. Lisandro Martinez ayaa si caro leh ugu falceliyay hadal uu jeediyay Paul Scholes oo ku dhaliilay daafaca reer Argentina. Martinez oo Manchester United kaga soo biiray Ajax sanadii 2022 lacag dhan 55 milyan ayaa seegaya inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kadib dhaawac jilibka ah oo ka soo gaaray guuldaradii 2-0 ay kala kulmeen Crystal Palace bishan. Si kastaba ha ahaatee, Scholes ayaa weeraray Martinez intii lagu guda jiray barnaamijka The Oval Fan Debate oo ay soo bandhigtay Sky Bet isagoo yiri xitaa markuu bad qabo ma aha daafac ka caawin kara inaad Premier League ku guuleysato. Martinez ayaa hadda si kulul ugu jawaabay eedeynta isagoo fariin adag soo dhigay baraha bulshada. Fiidnimadii Talaadada, Martinez ayaa bartiisa Instagram-ka ku qoray ninkan xun runtii wuu xanuunsan yahay haddii aad dhexgeyso Argentina xitaa ma isbadbaadin karo. Martinez waxa uu ku guuleystay Carabao Cup xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee United wuxuuna xilli ciyaareedkii hore ka soo laabtay dhaawac si uu u qaado FA Cup-ka dhamaadkii ololahaas.